hoos u dhac ayaa ku yimid biyaha webiga Shabeelle ee dhex mara magaalada Beledweyne waxaana taa ay keentay midabka iyo dhadhanka inay isbedelaan. Beledweyne ma lahan ceel riig ah oo ku yaala, taa beddelkeedana dadku waxa ay cabaan biyaha webiga Shabeelle, waxaana jirta in durba baqdin xoogan ay bulshada ka qabaan inay cudurro ka dhashaan haddii biyaha webiga Shabeelle ay sii wadaan cabistooda. agaasimaha wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Awil Maxamed Jibriil ayaa ka dalbaday hay'adaha samafalka gaar ahaan kuwa ay quseyso biyo dhaaminta in howlo biyo dhaamin ah ay u sameeyaan bulshada gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa ku nool Beledweyne. waa u jeedin webiga Shabeelle inuu biyo yareeyay oo biyihii ay isbedeleen saas daraadeed waa u jeedin inuu webiga qashi oo leeyahay. waxaan ognahay in dadka magaalada Beledweyne ku nool ay cabaan webiga Shabeelle biyihiisa. webigana hadduu mar biyo yareeyna xaaladda biyo la'aanta magaalada waa sii xumaanaysaa. hadda heer waxaan marnaa xilligii kulalaadka ahay ee webiga Shabeelle oo biyo yareeyay oo cudurrada sida shuunbiyoodka iyo waxyaabaha xilligii macnaha la galay. saas daraadeed waxaan marka koowaad halkan baaq u diray dhammaan bulshada ku nool degmada Beledweyne in ay biyaha webiga Shabeelle ay u jeedin xaaladda webiga sidoo marayo in webiga ay iska biyihiisa hadii la cabayaan ay iska kuleeyaan ayagoo macnaha kuloriin ku daraan inay cabaan. sababtoo ah webiga waa isbedelay biyihiisa culays noqdeen. webiga waa u jeedin qashin badan ayaa ku jiro. xaaladda biyahana waa ognahay magaalada Beledweyne in wax ceel riig ay ka shaqeyneen ee la cabo webiga Shabeelle. saas daraadeed markaan milkiilayaasha ceelasha degmada Beledweyne waxaan filayaa in kuloriin ayaan loo qaybiyay. kuloriinka ay biyaha ay ku daraan cidii macnaha oo biyo nadiif oo tayo leh oo macnaha kuloriin aan ku daran ay bixisana kulay sharciga ayaa tilaabo sharci ka qaadi doono. hay'adaha ku shaqeeya wash clusterka ee degmada Beledweyne ee biyaha ku shaqeeya waxaan ka codsanaynaa in ay nagala qayb qaataan magaalada Beledweyne xaaladda biyo la'aaneed ee ka jirta iyo nawaaxigeeda. waxa cabasho naga soo gaaraysa degmada Matabaan iyo degmada Maxaas ilaa ay degmada Farlibaax oo biyo la'aan ka jirto iyadoo macnaha meelahaasna wax riig aysan lahayn webiga Shabeelle oo ka ag dhaween. saas daraadeed waxaan farayaa hay'adaha ku shaqeeya biyaha in ay macnaha ka garab kaalin weyn ka qaataan in biyo u dhaamiyaan degmooyinkaas cabashada naga soo gaarayso. Awil oo sii hadlayay ayaa ka dalbaday madaxda ugu sareysa ee Hirshabeelle iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya inay ka shaqeeyaan sidii ceelal riig ah looga hirgelin lahaa Beledweyne si ay bulshada u helaan biyo nadiif ah. waxaan halkan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad aan ka codsanayaa maamulka gobolka Hiiraan in ay nagala shaqeeyaan xaaladaha biyo la'aaneed ee ka jirta gobolka Hiiraan maadaama ana wasaaradii biyaha iyo tamarta macdanta dowlad goboleedka Hirshabeelle anigoo maanta fursadan qaali ka faa'iideysana waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasiirka tamarta biyaha dowladda Hirshabeelle iyo dhammaan wasaaradda federaalka ee kheyraadka biyaha ee federaalka iyo madaxweynaha Farmaajo in magaalada Beledweyne ee ka jirta ceel la'aan ceel riig ee magaalada Beledweyne ee bulshada ee ka cabta ma lahan. magaalada Beledweyne waxaa ka jiro biyo ceel la'aan. Sharmaake Cabdullaahi Daahir raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland magaalada Beledweyne.